annagu waxa weeye Kenyaat xuno buro weyn ma sheegan kara dalka yaga diyaarna waa u nahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa noo qorshaysan anagu Soomaaliya la yiraahdo dagaal waa isna qaarna Kenya namana guriyeen jirin namana guriyeen doonto waa ka dagaalamayna hadda qoriyaha qaadanayna qor ma qaadanaysa adigu qorgayga qaadanaya diyaar baan u ahay inaan ku dhinto dalkayga badayda waa gartay marka haddii hadda kiiska Soomaaliya galabta loo xukumo dadka dabaaldegaya ma ku jiraa dabaaldegay waay maxaa ka qayb qaadanaysa barnaamijka marka hadda oo si gaar ah oo leedahay dabaaldeg noocaas sameynaya waxaan leeyahay Soomaaliya meel ay joogto mucaarad iyo muayid bah loo kaco badayda Soomaaliya dalka Soomaaliya badeeda dawladda Kenya markay isku dayday dadka Soomaaliya meel kasto ay joogeen waa ka kaceen shucuurtooduna waa kacday Kenya Soomaaliya ma hawaysan kardo ciidamada Soomaaliya Kenya waxay mari jireen iyagoon amar weydiisan markay dagaalkii Itoobiya aadeen maanta waxay is yiraahdeen Soomaaliya waa burburdhay laakiin Soomaaliya wadaniyada say ku tahay ma yaqaanin Kenya waxaan leeyahay nin heesaya wuxuu yiri ninka tuhunsan Soomaali baa tabar yaro in Soomaali baa tabar yaro inta aadan dib weyn kororsan aan tala ku siiyo hooy tibir laf baa ku jira Soomaaliya badeeda waa daafacanaysa badeedan ayada lahayd haddaad islahaydeen xagga burburka ayaad uga faa'iideysanaysaan Soomaaliya 30 sano oo burburka aad u maleynaysaan waxa ku jiray wadaniyad iyo dhulkeeda inay daafacato dadka Soomaaliyeedna dhamaantood mid yar iyo mid weyn meel kastaba ha joogaan inay difaacadaan badooda oo Kenya haday wax isku daydo ay tusaan Soomaaliya inay awood leedahay aan dalkeedan loo hawoon karin ayaan aaminsana waxaan u arkaa haday maxkamaddu noo xukunto Kenya diido horta waa waxaan xaq u leenahay in nala xukumo sababtoo ah badda annaga iska leh Kenya haday diidana waxaan u arkaa way ku khaldan tahay mana ku guuleysanayso diidda iyo amar diidda iyo maxkamadda inay diido oo ay si toos u garbixi weydo Kenya ku guuleysan mayso inta waxa ay dheer waxaan leenahay waa u dabaaldegaynaa waana soo dhaweynaynaa waana difaacanaynaa badayada haddii xabad noqoto aad umtaysa furud cid haraysa ma jiro bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed cabdillah la yiraahdaa anigu waxaan ahaa raggii 60kii shaqada soo galay dawladda oo ciidamada dawladda kamid ah Soomaaliya anigu saddex kalmadood baan leeyahay midda ugu horeysa Itoobiya iyo Soomaaliya waa dirireen waagi ay dirireen waxaan garanayaa nin Cabdilla Raaga la yiraahdo oo fanaaniintii ku jiray Soomaaliya qaranka yaa wuxuu yiri wixii dhiig loo kaca hees la yiraahdo wixii dhiig loo kaca anigu Soomaaliya ma la hadlaya Kenya la hadlimay Soomaalidu waxay iyaantii waa ogeed waxa ay sameeyeen iyo wixii ka dhacay dagaalkii Itoobiya buu ahaa wixii dhiig loo kaca Soomaalida baan leeyahay damaca kaliya horta baddi waa la xukumayaa maxkamadda cadaaladda xukumaysa Soomaaliya aan loo xukumaya laakiin Kenya waxaan u maleynayaa dagaal bay rabtaa dagaalka marka waxaan leeyahay aragnay libaaxii Afrika Itoobiya la oran jiray xunayna baa la oran jiray waagi hore libaaxii Afrika wuxuu u soo wareegay Soomaaliya marka Kenya damaca ay damacday baa ciiligaha yaa Soomaaliya ay damacday dhulkeeda iyo badeeda ay damacday baa ciiligaha yaa waxaan leeyahay Soomaaliya wixii dhiig loo kaca adigu haddii Kenya hadda dagaalkaasi uu dhaco Soomaaliya ay diido amarkaasi qoriga ma qaadanaysaa 1960kii waxaad kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad iyo aad gabdhaha qaadanay bal aniga iska dhaaf rag iska dhaaf badayna anaka iska leh Kenya ma xoogi karta haday xoogto waa ku dagaalamayna waan u dhimaneynaa dabaaldegna waa u dhiganeynaa hadaan guuleysano dhulkeena anaka iska leh bad iyo berib waa u dagaalamayna mucaarad iyo muxaafad waxaan aaminsanahay dhulkeena inaan xalid doono man weyn doono insha Allah
ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إلهي بما هذا السكله waxaan salaamayaa TV-ga Universal oo nasoo booqday maanta anagoo xamaasadeedu aad iyo aad u taagan tahay ay kacsan tahay waxaan hubka u soo qaadanay qoryaha u sidanaa maxkamadda adduunka oo leeyahay ICC xukunkii waxay yeelinaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha Oktoobar 2021 Kenya damaaci badan baa ku jiro waxaan dareemaynaa inay xoogaa isleedahay Soomaaliya waa tabar yar dhahay haddama tabar yar Soomaaliya waa Soomaaliya qorigaasaan u soo qaadanay AK 47 baan rabnaa inaan ku daafacno badayada ciidayada dalka iyaga iyo diintayada annagu waxa weeye Kenyaat xuno huro weyn ma sheegan kara dalka iyaga diyaarna waa u nahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxa weeye diyaarna waa u nahay waana tagaynaa ilaa iyo waxa weeye haddaysan Kenya ogolaanin wixii ka soo baxa maxkamadda wixii ka soo baxa maxkamadda Kenya haddaysan u hoggaansamin meesha ay joogtaan ugu tagaynaa waxa la leeyahay ciidamada soo dhoobtay hore Kenyaati baa yimid xeebta Lamu waxaas annaga nama quseeyaan xaqiiq waa tagaynaa waa bartay joogaan baan ugu tagaynaa waxaan sugaynaa xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka ICC ay ku dhawaaqayso maanta oo talaado ah haddii ay badda Soomaaliya oo Kenya nagu haysata ay noo xukunto dawladda maxkamadda adduunku dawladda Kenya oo xukunkii tir waa ka baxnay maalin dhaweyd oo hanjabaysay yaan waxaan rabnaa inaan u sheegno inaan isaga celinayna awoodayada xiniyahayaga iyo raganimadayada haddii aan ladno qoryahayagaan soo qaadanay sida aan u soo qaadanay maana naga dhaba Allahu akbar 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 Kenya kaasaan isaga celinayna haddii aan ladno Kenya kaasaan isaga celinayna Nairobi waa tagaynaa haddii aan ladno haddii aysan joogsan oo u hoggaansamin xukunka maxkamadda annaga tagaynaa Nairobi waxa la ceesaantii masiya good madax shabeelleefta malageedii baa galay Kenya waa isnaqaanay horena waa isu naqaanay haddana waa isbaranaynaa